madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyi iyo wafdigan uu hogaaminayo booqashada shaqo ku tagay cariga Itoobiya waxa si diiran ugu sii sagootiyay gegada caalamiga ee Cigaal International Airport madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici مسؤولين كله أو كتر سن حكومة دو يسوق جرا وزيرو حلدبانو إيو سراكيل كله أو كمدي هاي قدومي أحس بيجا كلمية مدحونا جمهورية الصومالي للمدن أحمد سيلاني وحاو حقور رنكوسي قولك في أي بيدا مدحضة جرونكا عقال انترناشنال ايربورت ورفيديا ندا هلقا سو كجا حقور رمي وجدد السعودال كيسن وكتجيو دلك إثيوبيا هلقا سؤال كروكل بدونه برايم مينستركا dalka Itoobiya insha Allah taala waxaan ugu soconaa waa sida caadiga ah Itoobiya waa dal aynu saaxiibnahay shaarnahay wax badan laga dhaxayaan kulli markii muddo la joogo dhaqan iyo diin oo hadeerayno hadii doorale arrimaha madaqada ka socota isaga warramo waxay halkaana wixii wartashi danaha quseeya labada dal aan ka wada safarka ugu socdaa waa sida weeye Itoobiya wax badan meesha ku jira ma jiraan insha Allah taala waana sida caadiga ah aan wax danta labada dal ku jirto aan ka wada hadli doono xiriirka Soomaaliland iyo Itoobiya baraba ma gaabinayo xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliland waa mid aad iyo aad u adag waa mid aad u wanaagsan waa ka aanu hadii goor isku arkana ee mar walba aanu ilaalinayno kulligiyo arrimaha ku saabsan la xiriira macaal khalafa la xiriira cidka la xiriira wixii dalbadanta Soomaaliland ku jirto waan ka wada hadli doonaa insha Allah taala madaxweynaha Soomaaliland waxa uu shaaciyay in socdaalkiisana uu ku koobnaan doono dalka Itoobiya oo ku sugnaan doono maalmo kooban hase yeeshee aan uga sii gudbi doonin cariga Ingiriiska waxaana uu geesta kale madaxweynaha Soomaaliland uu mar kale gogol nabadeed ugu baaqay bulshada ku dhaqan gobolada bari ee wax ka tirsanaya dawladda Soomaaliland waxaan jeclahay in mar walba mar kale ku baaqo oo ku celiyo in Soomaaliland iyo dawladdeedu ay diyaar u tahay mar walba dadkeeda iyo shacbigeeda ay dhibaato soo gaadho ay jeclayn ay diyaar u tahay gogoshi aan guriga fidinay ee walaalaha iyo gobolada bari aan u fidinay inaan mar kale u fidino oo aan wada hadal iyo wanaag iyo safkarad aan ku dhameeyno wixii arrimo ay yimaado nooc kasta waa ahaadeen khilaaf ay wada tashiyo taas midaan ka hadhna maaha taas midaan ka gaabinayna maaha waa midaan mar walba diyaar waxaana intaasi kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu salaan ka qaatay وتبيا كتر سن عيدما دقرن كي جمهورية الصوماليلاند من المعين وصلاة الأوبيا وتبيا كتر سن عيدما دقرن جمهورية الصوماليلاند وسلام madaxweynaha way socdaalkiisa Itoobiya ku helinayaan wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar arrimaha gudaha mudane Maxamed Nuur Caraale Duur wasiirka madaxtooyada mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo marwada koobaad ee qaranka Soomaaliland marwo Aamine Waris Sheekh Maxamed Jirde inta ay ku guda jiraan socdaalkoodaasi waxa uu madaxweynuhu shaaciyay in ay wada hadal la yeelan doonaan ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya Atomala Sanawi kaasoo ay kaga wada hadli doonaan si xoojinta xiriirka labada dal iyo xaaladda guud ee mandaqada Geeska Afrika